waxaa dhowaan dalka Sweden caasimada Stockholm lagu qabtay shirweyne looga hadlayay arrimaha Soomaaliya iyo mushkiladaha cakiran sidii xal loogu heli lahaa. shirkan oo ay soo qaban qaabiyeen koox ka tirsanaan jirtay midowgii maxaakiimta oo lagu magacaabi jiray kacdoonka shacabka xilliyadii maxkamadaha ay ka jireen koonfurta Soomaaliya gaar ahaan markii ay ka bilaabanayeen magaalada Muqdisho. haddaba mid ka mid ah qabanqaabiyaasha oo inoo sharaxi doona ujeedada shirkooda oo uu ku micneeyay inay tahay mid bilow ah waa kan Cabdirasaaq Xaaji. isku imaatankan ama shirkan lisugu yimid wuxuu ka soo dhashay 3 qof oo markaan is aragna oo nirneeyahooba miska aamusna mise waa hadalna waxay dhalisay marka inaan niraahno qofka ibn aadanka inta uu nool yahay aamusad inuu aamuso looma abuurin waa inaan hadalna waxaa ka soo dhashay marka in sida aad u haysataan warqadaha aad haysataan ee ku qoran tahay Somali Peace, Justice and Development ayaan u bixinay in bal nin allaala ninkii awood u leh waxa ka dhacayo Soomaaliya ama dareen leh in uu fikradiisa soo jeedsado marka ka bacdina wixii wax qabad ah la qaban karo laga qabto. sidoo hore bashar waa idin kugu sheegay kacdoonkii ugu horeeyay meesha laga aasaasay Sweden ay ahayd. isla hotelka naftirkiisa ayaa lagu aasaasay. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuuna leeyahay yani suuratu an-nisaa aayadda 114 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني لا خير في كثير من نجواهم هذا الأردن خير مالي وحقر له مالي markaasoo Allah subhanahu wa ta'ala istithnu sameeyay uu leeyahay illa 3 xaaladood mooyee yani ibn aadamka waska Allah shir markii la qaban hada waxa soo Soomaaliya ma hasu tagay ha de wallahi Allah meesha loo dhaqaaqay